Janet Butler ayaa qortay waxaan oo afka Ash wixii ka soo baxay. Ash wuxuu dhahay it's great time at on passive waqti fiican ee on passive u tahay up to this point time we have been on a trial run but nothing is going to stop us now. Ilaa waqtigan laga gaaro trial run ayaa ku jirnay oo tijaabooyin badan waxna istaajin kara male. We are at the tail end of impact that the negative people had on us. waxyaalo dad oo negative iyo waxba ayaa jira but based on the initial somewhat sketch months maadaama tijaabooyinka la nooc ay soo socdaan bishii September dhexdeeda we are confidently say we are a unicorn company. waxaan cadeysan karnaa oo si xaqiiqo aan isku dhihi karnaa on passive inuu yahay unicorn company and we could reach the $1 billion mark in less than 4 months. 4 bilood ka yaraan iyaan revenue ahaan lacag ahaan haddii la fiiriyo iyaan $1 billion ayaa gaari doonaa ayuu dhahay. I remind our initial thoughts about the remarkable invention of on passive. Asaasnimadii sidii ay kusoo bilaabeen oo dadkii on passive markuu ku soo asaasay ka hadlaa we consider outsourcing the work but soon we realized we needed to tackle it ourselves. waxyaalo badan ayaan u baahneen markii dambe ay ogaadeen wax ku filan inay ahayn waxay way si balaartaan camal oo inay ayaga ay diyaariyaan wax walba oo habeeyaan isku dayaan. We diverse phase plan with the goal of revealing life-changing inventions. waxyaalo oo life-changing waxa la dhahaa nolosha dadka oo bini'aadanimada wax ka bedelay within 10 years 10 sano dhexdeeda. By the end of 2018 it became evident that we are on to something much bigger. markii hore wax yar ay kusoo bilaabeen laakiin 2018 dhamaadkiisii waxay ogaadeen on passive wax oo weyn oo awood leh inay ay tahay. Then we initially thought we will still become early adapters kuwa oo horeeyo oo changing iyo isbedelka iyo waxyaalaha socdo oo qaadanayo ama se fahmayo. We change our approach sida ay wax u sameynayay bedelan. We shifted from launching just the digital product platform. markii hore wax oo digital product platform bas inay launch gareeyaan oo soo dhigaan ahayd suuq but waxay to build the ecosystem. As it became more confident in our ability to achieve this we pursued a whole head waxyaalo badan ay adiga si isku sii daayna markii ay dhaqaaq badan ay si sameeyaan oo wixii way si koraan way si weynaadeen waqti bay ay qaadatay. Unfortunately some initial adapters remained us resistant to switch. We are allowed to provide the option of many to leave if they aim for something bigger. marka ayagana hamigooda wuu sii kacay meelo badan ay isku dayeen waxyaalo badan ay sii qabteen. This led to negative feedback waxyaalo oo adiga setback or negative xanibaadana way ka soo gaareen. In respond to making it challenging marka way ku sii adkeeyeen way ku sii challenge ku sii noqotay xanibaad ahaan to make people believe in the potential for really world improvement and transformation. marka waxay ogaadeen waxa ay soo wadaan inay ay noqon doonto wax oo adduunka dadka sida technology-da oo isticmaala ama oo la interact gareeyaan wax weyn ka improve gareynayso. Consciously some chose some leave. dadna way doorteen dadna way dhaafeen. Our growth was unprecedented result in opening numerous offices worldwide. marka koritaanka ay koreen taas waxay samaysay inay meelo badan oo daafooyinka adduunka ka kala midaysan anaga dhammaanteen ognahay ee xafiisyo ay ka furaan. It was a thought decision either given to people what they wanted immediately or stick to our dream. anaga buu dhahay fikirkeena wuxuu ahaa meeshaan Ash inaan dadka waxay u baahan yihiin dhaqso u dhammeeno u diyaarino ama se inaan ku adkeysano oo runyadeeni iyo hamigeeni iyo meesha aan u socon. We chose to revise and declare do or die. Do or die ayay dhahaan markii dambe oo adiga sidee ama waxa waaye samee ama waxa waaye intaad sameynaysid sida isku dayaysid ha kugu dhibatada camal. We continue to pursue on our upgrading dreams knowing the challenges attacks would still
come our way annaga og xanibaado badan maxaa Maxamuud do or ha die maxaa do or die ama do or geeri die ama nolol geeri ama nolol ha Soomaaliya waxaad jeclaysaa Soomaali waaye waa gooye luqu gal luq anyways warkaasuu dhahay we continue to pursue our upgraded dream knowing that the challenges and attacks would still come our way annagoo og oo iyaan isku daynay riyadeen inaan kor usii qaadno oo wixii sii sameyno kusii adkaysano oo og negativity iyo waxyaalo badan oo challenging not just from the dadka oo funderka ku jira from the competition kambaniyasha kale dowladaha all the other areas oo qofku markuu fikrad la imaado ama ganacsi la imaado ku adkaanayso markaas haddana wuxuu dhahay we are growing so rapidly no matter how hard they attack us waa koraynaa si adag hataa si walba naloo attack gareeya we kept on moving waa sii soconay si walba oo naloo qashqashaaday astonishing everyone dadkii dhanaan ka yaabinay those attempting to hinder us don't realize that they needed more substantial strategy kuwii annaga inay xanibaan lagu sameeyeen waa inay kasii fikiraan waxa waaye substantial strategy waxay dhahaa khibrado kala gooni inay la imaadaan by the time they understood markay ay fahmeen waxay kuwa soo wadaan we are already soaring above the cloud markay ayagana soo qaban karaan annaga waaba dhaafna meel dheera ayaa sii maraynaa daruuraha camal oo iyuu dhahay so haddana midda ku xigta wuxuu dhahayaa when we upgraded the dream I proclaimed that we own the internet waxaan markaan aan dunyadeena aan korinay waxaan idin sheegay inaan internetka aan lahaan doono and that would offer the script to any business inaan annaga aan siinayno business walba waxay isku shaqaysan lahaa or any company however guarantee they lack the drive of uplifting humanity ganacsiyasha qaarkood waxa waaye humanityga iyo bini'aadnimada ma ka fikiraan their focus would solely be profitability ayaga faa'iidooda la fiirinayay wuxuu dhahay our vision is to make the internet recognize it to be more positive the current internet is often perceived as a negative and draining and we aim to create a more unfilled internet with the consumer mind internetka waxyaalaha hadda ku jira wuxuu dhahay waxyaalo oo negativity iyo waxa waaye laakiin anaga internetka waxaan ka dhigaynaa meel oo waxa waaye qof walba runyadiisa intuu ku abuurto iskaga noolaan karo haddana wuxuu dhahay our goal is to provide a single sign on aad ku galaysid sida hadda ecosystemkan oo kale markaan galeen an affordable stylekan wuxuu ka wadaa I think price wise lacagta ahaan platform with the seamless si fudud user friendly or userka u fudud experience and a wide range of product waxyaalo badan oo qofka faa'iido iyo intaas oo product oo kala nooc and services we provided that's the best use as we are in the internet user ourselves marka waa u fududaanaynaa buu dhahay tan is aiming to qof walba oo founder customer reseller iyo wax walba iyo hataa clientida oo productidaas gadanayso isticmaalayso sida corporate yaasha oo kale taas marka kasii tago wuxuu dhahay we aim to empower people to strive emphasize that this is for the people when internet we intend to complete the cycle by sharing revenue given wuxuu dhahay we aim to strive waxaan aan u jaha qaadnay dadka inaan wax u qabanno we intend to complete the cycle wareega inaan dhammaystirnaan rabnaa by sharing the revenue dhaqaalaha kasoo baxa inaan wadaagno sharing waa wadaagitaan ama isla isticmaalitaan giving back as much as legally as much as legally and financial possibility waxii oo la isla wadaagi karo oo lacag possibly while retaining enough to sustain the company oo lagana soo reebhayo waxay meesha kasoo baxa inuu companygana kusii shaqeyn karo qaarna waxa waaye dadkii founderka resellerka iyo waxyaalihii soo galay loo kala qaybinayo we have in-house experts across multiple regions dad oo khibrado leh ayaan haynaa across multiple regions meelo kala duwan oo daafaha caalamka ka mid ah
who are passionate about their work or shaqooyinkooda ku si asaasi ah ugu khatarsan. In addition, we will continue to pursue our own marching bank anaga aan leenahan sameynay na u dhahay. I think it's already in the waqtigaas shaqaday ku jirtaa u malaynaa because dad badan ay wali paymentada iyo xanibaada ku tahay. Payment process system ay diyaarinayeen and the full control over data ka informationka qofka waaye iyo privacyga ayaga controlkaas gacantooda ayuu ku jiraa, and hosting all in one place kulligood hal meel kugu kaydinay. If you follow this path, haddii aad wadadan raacdid, you can genuinely change the world, no exaggeration. haddaad wadadan raacdid adduunka adigana aad fahamtid waxaan on passive u shaqeynayso adduunka wax badan aad ka bedeli, no exaggeration waxa laga wadaa abdi exaggeration of Somali maxaa lagu dhahaa? Hello mali maqlaa maskiliga daldal mooyaa waa lagu maqlaa maxamed. Exaggeration waxay noqon kartaa wax macnaha laga badbadiyo oo dadka qaar no exaggeration kabacdi wuxuu dhahay way yara dheer tahay marka hadda waa soo yaryaraana tan eventidaas cabdi ayaa sheegi doona inta hoose eventida ka hadlaysaa. Haddana we initially believed waxaan aaminay markii hore we could complete this transformation by September. In September waxaan dhameynaa rabnay, but we were surprised by how fragile and corrupted the existing system was. Systemkii hore fragile wax jilicsan u ahaa oo kala daadsan camal. We realized that the significant changes we needed, so we shifted to a long-term strategy. Waxa u bedelnay systemkii hore inaan intaan aan bedelno wax oo long-term oo waqti dheer oo mataqaan mustaqbal noo shaqeynaya camal. And we now found ourselves in organic advantageous position. Melo organic oo hadda in-house wax cusub iyo ku diyaarinayeen sidoo systemku si fiican ugu shaqeeyo oo kii hore ka fiican. Marka wuxuu dhahay September 21st makes significant achievements in our history, although there has been few hiccups and we are addressing them, and once it's done it is game on. September dhexdeeda waxyaalo badan ayaan soo dhamaysanay ama waxyaalo badan ayaan soo achieve garanay oo ayaan ku soo guuleysanay inkastoo xanibaado yar ay jiraan, laakiin intaasay markaan ka soo gudubno dhahay oo dhameeyna inta yar oo noo dhiman game on waaye. We have the means waxa haysanaa awoodii to untangle inaan kala furfurno ourselves annaga are heading toward the unlimited goal. Waxa u soconaa meeshii ugu fiicnaad in the not too distant future. Meel oo naga fog maahin laakiin waa u dhawaana qarka u saaranahay camal. Marka recapkan wuu dheeryahay inta kale waxa waaye cabdi mi maqlaa ma ku sii socdaa maxamuud pointyada ugu muhiimsan ka soo qabso waxyaabaha aanad muhiimka u arkin ka bood iyo waqtiga kugu badan. Okay, so wali wax yara wali hal sax ku dhawaada iga dhiman salaadii marka waa dhameena intaan marka wuxuu dhahay I'm glad we chose the long term. waxaan ku faraxsanahay waqtiga dheer inaan dooranay long term approach despite the initial negativity markii laga soo gudbo xanibaadihii. The skepticism will fade away. waxyaalaha oo hadalka waxaas way iska dhamaan doonaan, and we believe waxa aaminsanahay we have already weathered the worst. waxyaala oo kuwan ka daran waa soo marnay, and we have proven ourselves. annagana waxa waaye waa ka soo gudubno ku guuleysanay. It is clear that we are unicorn. annaga unicorn company aan nahay u dhahay from the birth dhalashadeena waxa waaye company oo dad aynan soo gacan qabanin oo ummad masaakiin soo gashay. unicornka xogaa u sharaxaya unicorn waxa la dhahaa shirkad nooceeda ahaato oo soo bandhigta ama samaysay waxaan adduunka hore looga sameeynin samaysa. waa magac ay sameeyeen nimanka dhaqaalaha adduunka xukumo ayaa magacaan waxay u bixiyaan shirkadaha cusub ee sameeyay wax adduunka ku cusub isla markaasna gaare dhaqaalahooda oo gaaro $1 billion hal sana ku qaato 3 sana ku qaato
10 sano ku qaadato markay gaaraan shirkadan waxaa unicorn waaye ala dhahaa maadaama $1 bilyan qarash ay gaartay. Facebook waxay ku qaadatay 4 sano, Microsoft waxay ku qaadatay 7 sano, Google waxay ku qaadatay 6 sano, on passive wuxuu yiri Ashmo Farax 4 bilood waaye. Super unicorn maaha. First unicorn 4 months waaye, $1 billion waaye on passive. 4 bil gudood. Ku soo Maxamuud. Okay, so the unicorn company ha igu joogto sax meeshaas waa. Okay, from the bad and possible even super unicorn on Okonodahay, and we are growing and have some exciting surprise in store. Wa corona waxyaalo oo aad ugu faraxdeen iyaan idin hayna in store oo gadaal idinku haya. Our position could be better, lakin waa kasii fiicnaan doonaa buu dheh. Once everyone is satisfied, markuu qof walba u qanacsan, satisfaction waxa way qanactaan. Once everyone is satisfied and using our product ay ku qancaan alaabta ay on passive iska leedahay dadka userka ama kuwa resellerka ama kambaniyyaasha soo galayo, and people are making money oo dadka lacagta sameynayeen, the really fun begins. Markaas iyo ciyaarta noo bilaaban u dheh. And the innovation will be rolling out. Waxyaalo kala duwan ayaa soo bixi doona, requiring multiple layers of anticipation oo u baahan anticipation in laga qayb galo ama ay dadka ay isugu imaadaan oo wax wada dadka kulminayo. I don't have much to say today. Wax badan oo idin sheega ma hayo oo dhahay. I simply want to recap our journey. Wadooyinkan soo marnay inaan idinka taataabtaan rabay, and we are thrilled aad iyo aadan ugu faraxsanay at the speech with which all of this is happening. Speedka ay waxaan dhan ku socdaan iyo sida waxaan u socdaan. We are busier than ever. Zaida uga mashquulsanahay sidii hore. If it gets any busier, we will just have to keep stretching our capacity. Stretching our capacity. Haddii ay nagu sii adkaato, meeshan wuxuu ka wadaa haddii ay busy aan sii noqono ay nagu sii adkaato, dad badan camal inuu shaqaalan hayo oo wixii shaqadii mataqaana si kala qaybsanay. Marka kabacdi wuxuu dhahay thank you all who shared our bold vision. Dadkii anaga fikradeena nala wadaagay. I'm grateful and I'm thankful aad iyo aad idinkaga mahadcelina for how far we came. Inta meesha aan soo gaarnay to this day camal meesha ay soo gaareen hadda on passive iyo meesha ay marayso. All connected iyo update yaris ka taabtay. All connected update. Full view will be available in All Connect whiteboard for any whiteboard and videos. Whiteboard iyo videogaas waa la habeena iyo lock rooms qol oo inta xirata aad gooni waxyaalo kala kaga hadlaysid asagoo meeting u socdo will be available for a private group-yaasha oo private. Break time will be available. Break time ay ku darhayin meeting oo socdo mutes everyone automatically for a significant period of time, xilli yar ama waqti. OES mobile app ayaa soo socdo and will be available anytime to download from the back office. Dadka markay maqlaan hadda inaynan raadinin oo waxban soo download garanayna ay dhehen whatever oo la download garanay on passive laga siiba dadka cusub iyo walaalaha on zaid ugu xirneen. Intaad kacdida wax soo dejisid storada ka meelahaas ay Apple Store ama Google Play hadhin on passive way sabto tuugada jirta. On passive wixii laga soo dejisan ecosystem ka la soo dhaxdhigi halkaas lagu dhufan halkaas laga soo dejinay ka bacdi dadka waxaan la waday oo maalinta shirka ku jiro iyo mahad celiyay. Thank you Dan Street, Daryl Cook iyo Peter Suri for helping with the notes. Dadkii oo waxaan qoray way halkaas ayaa kaga baxa. Thank you guys so much.